madaxweyne xaaf waxaan ku weydiinayaa horta inaad nasalaanto marka hore ku wareysan mayno wallahi hadaadan nasalaamin salaan aniga iyo dadka kullina salaan amaan aad iyo aad baan maartay idin salaamaya waan ka qaadnay xaafow adiga iyo xasan cali qayre inaad isfaartaan kaliya idin dhiman wax aad isku reebateen male bal maxay idinku haysataa niyahow dawladda nabad iyo nolol maxay idinku haysataa anaga waxa nala ku haystaa wax kala ma aniga dastuurka Soomaaliya waxa ku taal qofka marka la doorto waqtigiisu waa 4 sano madaxweyne marka la doorto waa 4 sano hadda 2 sano jooga labadii kaliya iga gooyay talo ma naqaan wax ka gooyay xayta ayaa iga gooyay walagay ma arag 2 sano la gooynaay niyo waxa fawanay ma nagu ciyaaraysaa adeero gacaliye noo sheeg waay adiga wax ka gooyay 2 sano waxa iga gooyay kaliya kuma rabno culays miiran baa tahay wax darano aan rabin baad sheegtaa niyo nadaa waa ognahay iska tag inaadan ku tagayn oo inta gaalkacya tagtay baa tiri islaantii galmudug ahayd rajactu hal dalqaan ku soo ceshaday waa ku ognahay adeer laakiin niyo waxa fow dawladdu marna ma ku gorgorisay oo lacag ma ku sheegtay ilaahay ka baqada been noo sheegay ilaahay way igu oginaan maaragtay wadi ugu gorgoriyaa jira waxaan igu gorgoriyo taas waa ognahay xaafow in lagu gorgorinayo ciyaariyaan landheera oo farta ka xiran baata laakiin waliga ma yeeshay ilaahay ka cabsay laakiin anigu nin la gorgorin karo maahi ma socdo xaafow marka tiri hobyo shidaalkeeda waa la soo saari karaa bil baana lagu qodi karaa oo aad beesha caalamka iyo dawladda aad u gudbisay amaan baan badnayda maxay kugu jawaabeen horta waxa la igu haystaa wax sheegan warkaas gaalkacyo dhan waxa la isla marahayaa ninka xaafa carabiga ilaahay waa ku dhiba oo carabi ma yaqaan arinta maxaa ka leedahay niyahow bal wax dustadkan ka dabalusha ما شرف نفسه فهو شريف ما شاء الله inay qoosan doonaan waan u malaynayaa aan ka gudubno reedu samareeb markaad madaxweyne u noqotay niman ahlu sunna wal jamaaca la yiraahdo oo iska digriya walaalow markaad qudbaynayso kuma sacbiyaan horta niyow dhibaatadaas ma ila aragta arugu arkay reedu samareeb waxaan ku arkayo shacabkaada bakhiir weey war hadda xaafow ina isku kalsoontaan moodi jiray maxay tahay la isacbiyo صعب محو سوكر ديا نيو وربا واحتراهيه محو سوكر ديا صعب صعب قفل خبينها هي أما هيسها هي أما قبيها هي وقوابيايو يسنموس وصح والله وصح إلغو صعب يواد أستهيشا حافو لانديراتها لكن حافو ولا لو ننسى علىها تهي أو عبد الله سيارة عبد الله عوريرنا وسودو ذها ميادا آذين سيارة عبد الله عوريرنا وبقولنا خسرنا هذا هو وقت سيارة عبد الله عوريرة هذا madaxweyne siyaarada Cabdallah Cawareere wali lama gaarin bay dadku leeyihiin haddii adigu ka war hayso maxaa ka dhiman meeqa bari baa ka dhiman wallahi 15 bari baa ka hartay adeer xaafow dadku sidaadoo kale ma jeeba buurna koob shaaha ma shuban karno markaas leedahay Cabdallah Cawareere aan aadna siyaartooda diyaaradda qaali weeye tigidhka wallahi bal inta tagno diyaarad qaadan hadda waa raqiis aan ismeesh soo istaagno ka soo ducaysan waayaha madaxweyne waa ka yeelnay awooyaal Cabdallah Cawareere waa ka soo ducaysanayna madaxweynihii ugu horeeyay oo galmudug ay yeelato Cabdallah Cawareere ka soo ducaysta nayiri baa taha waana ka yeelna laakiin niyo Cabdallah Cawareere al-ittixaad bay dhaleen al-islaax bay dhaleen suufiyay dhaleen hadda dadkaas laga yeelayaa iyaguna al-ittixaad mana raacayaan yaa oo al-islaax iyo ittixaad xagga naga dhiga horta suufinimadu u laaban hal mar ayaa ku qorwaaqo u jeeday waayahay adeer xaafow tala fiican baan nasiisay al-ittixaad waa ka haraynaa suufi baan raacaynaa awoowayaal Cabdallah Cawareerana waa ka soo ducaysanaynaa laakiin dadku waxay leeyihiin wasiir Sabriye waxaad ku wareejisay wakaalad dadkuna waxay yiraahdeen wakaaladaasi galmudug oo dhan buu uga tanaasulay xaaf maxaa ka jira bal noo macnaa wakaaladaas aniga markii la lahaa waxaad ku wareejisay xilku wareejinaa wasiirka arrimaha gudaha waxaan siiyey wakaalad magaceeda wax taqaaniin wakaaladda haddii qofku wixii aad u wakiilatay xumeeyo dee waxaad ku khasban tahay inaad kala soo laabatid
haddaan ku fahanay aad bay nooga dhaadhacda laakiin qarfaan hadda dhuusamareeb buu joogaa dawlad iyo maamul goboleed iyo waxbuu dhisahayaa qoorqoor bayna wataan baan isleeyahay dawladdu marka arrintaa maxaa ka leedahay qarfaan iyo wuxuu la fadhiyaa dhuusamareeb waa baadil waxa uu dhisay waa baadil waayahay wasiir qarfaan bartiisa facebooka wuxuu soo dhigay inuu berri madaxweyne dooranayo madaxweynihii hore oo adiga uu kala jeedo iyo kuwii ka sii horeeyana wuxuu ka codsaday inay taageeraan arinta maxaa ka leedahay manasa taageeri doontaa aniga waxa barito waxaan dooranaynaa madaxweyne cusub madaxweynihii hore iyo dad kalena waxaan ka rajeedaa inuu la heshiiyo bal yaa u dirsaday doorashada cid u dirsatay ma jirto waayaha ijiid aan ku jiiday waa gacma daalis xaafow adeerow gacaliye hadda maxaa samaynaa waaya annagu waad ku dulbaabaana adiga iyo dawladda haddaana reer galmudug baktigaa noo xalaala maxaa xala bal noo sheeg hadda maxaa xala hal waxa weeye Soomaaliya dawladda loo dhiso midda hadda jirtana nabad iyo nolol ayadoo maxaa ku samaynaynaa meesan dawlad ahayn wax jira ma haato waayaha madaxweyne xaafow geesi talwaayaata ilaa maxamed siyaad barnaamij iska soo qaraabanahayay oo wax iska soo qarbudahayay baa tahay maca taad waa ka soo shaqaysay alla maxaa laan dheerata marka waxaan rabnaa inaad noo ducayso adeero gacaliyo noo duco cudur baan nahay cudurka Allah naga saaro ilaahay caafimaad hana siiyo dadkayga ilaahay maaragtay toobada ku sugo dariiqa sax Allah ku sugo inay ismaqlaan inay istaakulayaan ilaahay ha ku hanuuniyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته intaas ayaa ku soo gabagabeynaya barnaamijka wareysiga kaftanka siyaasadda waxaana berri inoogu xigi doona insha Allah sanbalolshe insha Allah waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Abwaan Xarago 8 saac bariga Afrika saacadu markay taan soo gelinaya balse waa inaad kun share gaarsiisaan assalaamu calaykum